السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا ليال السودة وادا هدي عاد مالكش سمينيسيد oo xoogay lacaga aad haysatid 10,000 oo dollar 20,000 oo dollar 6,000 oo dollar u dhaxaysa waxaan kugula talin lahaa in aad lacagta aad gelisid ganacsiyada la xiriira beeraha iyo xoolaha sababtoo ah waa kuwa ugu faa'iidada badan ee muddo kooban lacagtaad gelisay ay kaaga soo laaban karto tusaale ahaan hal greenhouse oo cabirkiisu yahay 8 mitir oo ballaca iyo 40 mitir oo dherer ah sida kanaad hadda aragtaan oo lagu beeray gudihiisa 1500 oo geedkiina 13 kiilo oo qudaar ah uu dhalayo 19 oo kiilo ayaad ka helaysaa oo saxaaradood oo qudaar ah sidoo kale haddii aad konton riyo ah aad dhaqatid oo sida dad ila soo xidhiireen oo halkii koombe ee caanaha riyaha la siinayo $1 iyo badh maalintii kontonkaasi $100 oo dhowdhow $80 oo dhowdhow ayay shaqaynayaan bishii waa dhowr kun oo dollar waxaad samayn kartaa ariga iyo xoolaha dhoofintooda ayaad ka ganacsan kartaa digaaga beedkooda ama ukuntooda ayaad samayn kartaa bal aan isla fiirino ganacsiyada xoolaha intaanan guda gelin waxaan jeclaan lahaa marka koowaad inaad muuqaalka aad like saartid si uu dad badan u sii gaadho haddaba walaalayaal waxaan jeclaan lahaa inaan dadkeena ku baraarujiyo in ay u soo jeestaan faa'iidadan aadka u wanaagsan ay ka sameeyaan ganacsiyada la xidhiidha beeraha iyo xoolaha oo intaas oo dakhli oo kala duwan jeebkooda soo gelin kara tusaale ahaan haddii aad beer leedahay oo beertaasi biyana ku leedahay si fiican ciideeda loo jabiyo waxyaalaha gudaheeda ku beeri kartid waxa uu dhaqaalaha kaaga soo saari kara waxa kamid ah waxaad samayn kartaa beerta waxaad ku beeri kartaa greenhouse-yada guryaha dadan oo sanadka 12 bilood bisha koowaad ilaa bisha ugu dambeysaba isku hal wax lagu beeri karo cudurka gudihiisa beerta uu yar yahay cimilada laga xifdin karo biyaha iyo xididka loo ilaalin karo loo koobi karo oo halkii greenhouse-na dhowr iyo 10 tan oo qudaar isugu jirta tamaandhadii barbaroonigii isugu jirta khiyaarkii oo intaas oo tan ah oo qudaara ku soo saari karo tusaale ahaan cabirada $6,000 iyo $6,000 iyo xoogayga ugu weynba waxaad samayn kartaa 19,000 oo kiilo ama 20 tan wax ku dhow ay ku soo saari karaan marka si fiican looga shaqeeyo waa dareemi kartaa waa dhowr iyo 10,000 oo dollar ayuu halkii greenhouse kaliya ku soo saari karaa 6 bilood meel adduunka inta laga helay ma jirto sidoo kale nin dhalinyaro hadda koori la soo xidhiidhay isbuuciyo dhaweyd wuxuu yiri Sakariyow caanaha riyaha ayaan magaalada keenaa konton riyaad haddaad haysatid caanaha riyuhu waaba ka qaalisan yihiin magaalooyin badan sida la ii sheegay caanihii geela hadda halkii koombo waa $1 iyo badh konton riya haddaad dhaqatid oo min $1 iyo badh neefkii haddii 3 saac labada gelin laba koomba laga liso waa $3 yacni $150 ayaad ka helaysaa calaa maalin 10kii cisho 1,500 bishii 4,500 oo dollar iyagoo banaanka ku daaqaya biyihii aad meel kasta ka helaysid haddii aad sidoo kale aad ariga rabtid carafada soo socda inaad carabaha u dhoofisid ari qiimo jaban oo nin dhalinyaro hadda wuxuu igu yiri Sakariyow $15 $20 ayaan soo siistaa iyagoo jiqiiq iyagoo yar ka bacdi muddo kooban ayaan sii naaxiyaa waan sii iibiyaa marka arigaas oo kale sayladaha waaweyn iyo maxjarada $100 $90 $120 meelahaas ay baxaan miyada iyo tulooyinka iyo meelahan waxa laga soo ururiyaa dhaqaale inta aad iyo aad uga yar ayaa looga soo ururiyaa 300 neef ariya 100 neef 1,000 neef ariya hadba intaad iibisid intaas oo $1,000 oo dollar ayaad iyagana ka samayn kartaa waxaad sidoo kale beerta samayn kartaa basashi geedweyntii lin macaantii saytuunkii waxyaalo badan oo geedweyntaas ayaad ku beeri kartaa beerihii gudahooda oo iyagana calafkii ayaad ka iibin kartaa maxjarada iyo sayladaha xoolaha lagu sii iibiyo oo cawskii intaad u beertid ayaad u diyaarin kartaa gaadhi dhan oo caws ah gaadhi dhan oo bal ah oo marka ay ka iibsadaan maxjarada iyo shirkadaha rag ayaan anigu Sakariye ahaan aan la kulmay beero dhowr iyo 10 hektar leh oo yiri xoolaha waxaa nooga kharash badan cawska iyo calafka aan maxjarada ka gadno ayaa nooga lacag badan warka oo meesha labaad iyaduna
ay lacagtu ku jirto dhoofka xoolaha ayaa kamida waxa kamida qudaartaas basasha oo kale tusaale ahaan nin dhalinyaro wuxuu igu yiri 1 kiilo oo seed basasha ah oo aan soo beertay ayaa waxaan ka helaa 80 kiish oo basal ah ayaa iga soo baxda marka halkii hektar oo kale ayaa intaas oo ma artay tan 20 tan 23 tan oo kiilo oo basala ayaad ka soo saaranaysaa oo markaad wholesale ka iibinaysid 0.8 $1 laga siisanaya marka ka ilaa $1 iyo badh ay gaadho hadda walaalayaal ganacsiyadani waxay ku jiraan lacagtu ay isla markiiba kaaga soo baxayso waa ganacsiyada beeraha iyo xoolaha la xiriira tusaale ahaan haddii aad hadda aragtid يعني ukunta oo kale ama beedka sanduuqa 30 xaba $5 ayaa la siiyaa meelaha markay ugu jaban tahay $4 iyo badh ayaa lagu helaa digaaga hadaa dhaqatid sidoo kale waxa dhici karta maalintii $200 in ay soo saarto waxa ugu badan ee ka galaya waa calafkay cuni lahaayeen iyo shaqaalihii iyo xoogay daawooyin ah intaasna waa kharashka ugu jaban ee shaqaalayaasha lagu helo ay kamid yihiin ee beeraha waxyaalaha la xiriira ka shaqeeya sidoo kale waxaad iyagana aad ka helaysaa calafkii ama waad u beeri kartaa oo halkii hektar ayaa 10 tan ku soo saaraya calafa ama sidoo kale yani cawskii baad u beeri kartaa galeydii baad u beeri kartaa haruurkii baad u beeri kartaa marka iyadana waxaad ka helaysaa kharash sugan ayaad ka helaysaa waxaad samayn kartaa sidoo kale badii oo dihin dadka xeebaha degan haddii aad solar aad maal gashataan iyo talaagada waaweyn kalluunkii ayaad kaydin kartaan magaalooyinka iyo tuulooyinkana aad u sii iibgeyn kartaan oo halkii kiilo lagaga soo helaya badda wax $1 ka yar 0.3 magaaladana laga siisanaya $4 kiiladii $3 iyo badh $5 iyo badh magaalooyinka waaweyn laga siisto waad dareemi kartaa percentage-ka margin-ka faa'iidada saaran ala kiilo marka walaalayaal hilibka dheh caanaha dheh qudaarta dheh calafka dheh waxyaalahaas oo dhan iib joogto ah ay ku leeyihiin oo dalka gudihiisa iyo dabadiisaba loo dhoofinayo ay ku leeyihiin marka walaalayaal waxaan kula talin lahaa beerta magaalada gudaheeda hadaad boos ku leedahay greenhouse oo kale waad ka dhisan kartaa ciidii ay jabinaysaa laba taangi oo waaweyn oo min 20 foosta qaada ayaad ku xidhanaysaa bishii oo dhan kugu filan sidoo kale haddii aad dhul kooban leedahay waad sii bilaabi kartaa ganacsigan hal greenhouse ayaad ku bilaabi kartaa haddii aad beer leedahay in yar xoolo ayaad ku bilaabi kartaa hal shaqaale ayaad ku bilaabi kartaa waa ganacsi uu fudud yahay sida lagu soo galaa dhaqsana qofku u kori kara marka insha Allah walaalayaal sakariya ahaan waxaan rabaa inaan mowduucyadan xoojiyo oo aan idin kala shaqeeyo waxaan hadda soo wadnaa buug daryeel iyo daaqsin la dhaho oo ka sheekeynaya bal xoolaha lafdabarta dhaqaalaheena ah ee dhowrka $100 milyan oo dollar ay ka soo xirooto sidee caafimaadkooda looga shaqeyn karaa xanuunadee ku dhaca sidee loo daryeeli karaa calaf noocee ayaa la siin karaa buugaasna waxaan ku bashaareynayaa dhawaan inuu soo baxayo oo aan soo wado qofkii raba inuu dalbado waxa weeye insha Allah markuu soo baxo waad heli doontaan dhammaan magaalooyinka Soomaaliyeed sidoo kalena qofkii jecel in balbeertiisa loo dayro oo loo xiro silig loogu xiro in haday biyo ku jiraan biyaha looga soo baaro in maaragtay greenhouse looga hirgeliyo in xorfadihii daamamka waaweynaan loo qodo oo biyaha ay beerta aas markasta u ah ama xataa beer la soo iibiyo ama adeegyo badan oo beeraha la xiriira lala qabto digaaga maartay qaabkii loo dhaqan lahaa buugii ku saabsanaa la siiyo laga iibiyo waxyaalahaas oo dhan waxaad naga heli kartaan lambarkan WhatsApp-ka ah ee shirkadda Somleaf oo aan idin bilaabay oo ka shaqeyn doonta adeegyada beeraha iyo xoolaha la xiriira adeegyada aan qabanana waxaad ka daawan kartaan muuqaalkan aan halkan ku dhufanayo waxaan sidoo kale xafiis ku leenahay magaalada Hargeysa eriyada caanaha riyaha ayaan xafiiskayagu yahay ayaan insha Allah iyadana idinku bashaareynaya marka walaalayaal insha Allah waxaad imaan kartaan xafiiskayaga oo aad ka heli kartaan dhammaan adeegyada idin fududeynaya si aad suuqan aad ku bilaabi lahaydeen ganacsiyada beeraha iyo xoolaha la xiriira haddii ay tahay ceelashii iyo waxyaalihii oo dhan iyo siirarkii calafka iyo waraabintii beeraha hektarada ah
iyo waxyaalihii la xidhiidhay oo dhan ayaad xafiiska insha Allah ka heli doontaan. lambarkan shaashadu ku qoran yahay ayaad nagala soo xidhiidhaysaa. sidoo kale greenhouse-yadana playlistigoodii halkan ayaad ka daawan kartaa. waan muuqaalo badan oo hore aan ka sameeyay. insha Allah waxaan rajeynayaa inay bulshada Soomaaliyeed ay caanaha daasadaha ay soo dhoofsanayaan, caanihii xoolaha dalkeena ku bedelaan oo xoolihii la dhaqdo oo xoolihii la inaga iibsanayay la dhoofiyo oo lacag badan inooga soo xirooto kaasha oo qudaartii dhowrka $100 milyan la soo degaynay ay nagu la soo baxno shaqo abuur ay samaysano. intaaba shirkadda Somleafna way idinka caawinaysaa. lambaradan ayaad nagala soo xidhiidhaysaan. walaalkii Sakariya Cabdullaahi Cali. Salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.